Wacan oo wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey qodobada xilligan aan idiin haya waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheekh oo guulo waaweyn ka soo hooyay shirkii Addis Ababa kadib markii shirkaasi laga soo saaray bayaan rasmi ah oo lagu cambaareeyey aqoonsigii sharci darrada ahaa ee Israa'iil ay siisay Somaliland iyo Midowga Afrika oo garab istaag weyn u muujiyey madaxbannaanida Soomaaliya. Haddaba khudbad noocee ah ayuu shirkaasi ka jeediyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allah. Wararkeena kale waxaa ka mid ah xog laga helay madaxweyne Xasan Sheekh oo damacsan inuu ku kaarto baxo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre islamarkaana uu noqdo ra'iisul wasaare Xamse ajandayaasha looga wada hadli doono miiska wadahadalka ee shirka Muqdisho ka furmaya dhowaan. Maxaa ka jira in ra'iisul wasaare Xamse uu isaguna wado qorshe uu uga hortegayo in lagu kala baxo? Dowladda Turkiga waxay maanta Soomaaliya u soo dirtay markabkii qodi lahaa shidaalka laga helay dalkeena xilli la shaaciyey in Soomaaliya ay faqriga ka baxayso dhowaan, iyo ciidanka Jubbaland oo cashir weyn u dhigay kooxda Shabaab kadib markii ay burburiyeen oo ay baabi'iyeen warshadii qaraxyada ee kooxda deegaanada Jubbaland. Qodobadaasi kuwa kale aan faahfaahin doona barnaamijka insha Allah. Dadan way cusub tahay muuqaalka like saar ina share garee wararkeena. Waad mahadsantihiin. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gunta dhiisha isaga dhigay tan iyo xadgudubkii Israa'iil ay ku soo qaaday madaxbannaanida Soomaaliya ayaa wuxuu hadda guulo waaweyn oo la taaban karo ka soo hooyey shirkii uu kaga qayb galay magaalada Addis Ababa ee xarunta Midowga Afrika, sidoo kaleetana ah caasimadda waddanka Itoobiya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intii uu shirkaasi ka qayb galayay waxa uu kulan duceedo la qaatay madax ka tirsan Midowga Afrika iyo sidoo kaleeto madaxweynayaasha halkaasi ka soo qayb galay. Wuxuu kala hadlay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo madaxbannaanida dal kasta oo Afrikaan ah, maadaama haddii dal kastaahi oo Afrikaan ah lagu sameeyo xadgudub oo aan laga dhiidhin in Midowga Afrika wuxuu u taagan yahay ay tahay wax aanan markaasi la fahmaynin. Haddaba madaxweyne Xasan Sheekh oo isagu galaangal badan sameeyey halkaasina sidoo kale ka jeediyey khudbad cajiib ahayd oo uu si adag uga hadlay dowlad dhiska Soomaaliya inuu meel wanaagsan marayo, Soomaaliyana ay hadda u gudbayso doorashooyin toos ah, ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in Soomaaliya lagu soo duulay loona baahan yahay in Midowga Afrika ay Soomaaliya ka tirsan tahay in ay noqdaan ururka ugu horeeya ee taageerida ugu weyn markaasi siiya. Haddaba shirkii markii uu soo idlaaday kadib waxaa la soo saaray bayaankaas waa waxa ugu muhiimsan maadaama shirkii inta uu socday aragtiyooyin kala duwan la dhiibanayay kadibna la soo saarayo warmurtiyeed rasmi ah. Warmurtiyeedkii rasmiga ah ayaa la soo saaray ayaa si weyn loogu cambaareeyey aqoonsiga sharci darrada ah ee halka dhinac ah oo ay Israa'iil siisay Somaliland, kaasi oo ah mid xadgudub ku ah ahdiga qaramada midoobe iyo sidoo kaleeto midka Midowga Afrika. Bayaanka waxaa lagu sheegay in Midowga Afrika uu si buuxda u taageersan yahay madaxbannaanida Soomaaliya, isla mar ahaantaana uu diidan yahay wax kasta oo Soomaaliya lagu kala qaybinayo. Sidoo kaleeto war-saxaafadeedka waxaa lagu xusay in Midowga Afrika uu taageersan yahay go'aankii uu soo saaray guddoomiyaha Midowga Afrika Maxamuud Yuusuf oo horay isagu arrinkan oga hadlay 26 Diseembar bayaan adagna markaasi soo saaray. Bayaankan ayaa waxa uu noqday mid si weyn u soo jiitay Soomaaliya iyo sidoo kaleeto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudba, arrinkanna ay tahay mid muhiim ah oo Soomaaliya guul u ah. Israa'iil tan iyo 26 Diseembar kadib wax dhaqaaqe ah oo kale ma aysan sameeyeen marka laga reebo in kaliya telefoon la isku aqoonsaday oo ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu uu telefoon kula soo xiriiray madaxweynaha hogaamiya Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Dhanka kaleetana dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay si rasmi ah ugu biirtay habraaca la yiraahdo African Review Mechanism oo u aas-aasay Midowga Afrika, kaasi oo dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika ay isku qiimeeyaan oo ay iskula xisaabtamaan si loo horumariyo maamul wanaagga. Ku biirista Soomaaliya ee barnaamijkan la yiraahdo African Review Mechanism ayaa timid intii uu socday kalfadhigii 35aad ee madasha hogaamiyaasha dalalka iyo dowladaha markaasi barnaamijkan oo lagu qabtay Addis Ababa, waxaana habraacaasi saxiixay madaxweynaha Soomaaliya. Barnaamijkan ayaa ah nidaam ay dowladuhu si ikhtiyaari ah oo doorasho ah ugu oggolaanayaan in la qiimeeyo siyaasadooda, hay'adahooda iyo nidaamyadooda maamul intaba. Waxay ka dhigan tahay in dowladda Soomaaliya ay hadda muujinayso
kalsooni ay ku qabto maamul wanaageeda iyo sidoo kaleeto habraacyada noocyada kala duwan oo ay u aragto in la qiimeyn karo. Taasi waxay muujinaysaa in dowladda Soomaaliya halkii shalay ay joogtay wax badan ay maanta ka wanaagsan tahay oo ay ka sarreyso. Waa hagaag aragtidaada qaybta hoose ayaad nagula wadaagaysaan saaxiibayaal markana. Xogo warbaahintu ay helayaan waxay sheegayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu damacsan yahay oo uu qorsheynayo oo uu ka fakerayo in uu ku kaarta baxo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre oo muddo 3 sano iyo bar ka badan si dhow ula socday isla mar ahaantaana marnaba aanan khilaafin. Xogtu waxay sheegaysaa in madaxweyne xasan sheekh uu qorsheeyey in miiska wada hadalka marka la isugu yimaado isaga iyo xubnaha golaha mustaqbalka waxyaabaha laga hadli doono ama ajendayaasha laga hadli doono ra'iisul wasaaraha qayb uu ka noqon doono sidii haddaba. Waxaa la tilmaamay in madaxweyne xasan sheekh uu doonayo in uu helo muddo kororsi sida keliya ee muddo kororsi uu ku heli karana ay tahay in ra'iisul wasaaraha uu meesha ka saaro mucaaradka iyo xubnaha ka soo horjeedana uu ku qanciyo in la keeno ra'iisul wasaare wadaag ah oo labada dhinacba ay ku qanacsan yihiin oo doorasho qaban kara madaxweynahana la siiyo muddo xileed kale oo la isla ogol yahay oo heshiis siyaasadeed ku yimid. Arrinkaas ayuu si weyn markaa u doorbidaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu la tago ajendayaasha iyo sidoo kaleeto miiska wada hadalka inkastoo shirka weli la isku khilaafsan yahayba halka uu ka qabsoomayo iyo goorta uu qabsoomayo intaba. Laakiin dhanka kaleeto marka aan fiirino ra'iisul wasaaraha isaga laftirkiisa waa uu og yahay qorshayaasha soconayo iyo sidoo kaleeto waxa hareerihiisa ka socda waxaana haatan uu ku howlan yahay sida warbixinada ugu dambeeyay ay tibaaxayaan inuu arrinkaasi ka hortago. Sida keliya ugu hortegi karana waa in uu ka hor yimaadaa qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla mar ahaantaana uu kiciyaa oo uu abuuraa khilaaf labada xafiis ee dalka ugu sarreeya markaas oo la kala taageeri karo isjiijiid dheer ayna sheekada noqonayso kadibna madaxa ay isla geli karaan dhinacyadu sidaasina ay ra'iisul wasaaraha uu awood xitaa ku yeelan karo maadaama madaxweynaha madaxweyneedkiisa uu sii dhammaanayo oo uu yahay mid gabaabsi ah. Qorshayaashaasi ayaa soconaya balse waxaa la ogaan doonaa marka shirka uu qabsoomo sida shirkaasi uu noqdo ayaa lagu qiimeyn doonaa wax waliba. Wahagaag barnaamijkeena ayaa dowladda la socotaan markana. Dowladda Turkiga maanta waxay soo dirtay markibkoodii ugu weynaa ee shidaal qodista kaas oo ku soo wajahan xeebaha Soomaaliya dhawaan. Wararku waxay tibaaxayaan in uu soo sharaacday markabkaasi weyn ee shidaalka qoday ee Turkiga uu leeyahay waxaana uu ka soo sharaacday xeebaha dalkaasi Turkiga. Warkan waxaa xaqiijiyay wasiirka macdanta Soomaaliya iyo wasiirka dekedaha xukuumadda Soomaaliya oo iyagu ku sugan dalkaasi Turkiga. Qorshe waxa uu yahay in ay shidaal qodis bilowdo dowladda Turkiga dhawaan shidaalkaasi waxaa laga qodi doonaa deegaanada Galmudug oo horay muddo 7 bilood ah markab shidaal sahmin ah uu halkaasi joogay markii warbixinada uu soo dhameeyeen uu ku ogaaday in halkaasi shidaal laga helay. Markabkan weyn ee la soo diray maanta ujeedadiisu waa inuu shidaalkii qodaa waqti ay qaadanaysaa oo ilaa iyo dhowr sano ah. Laakiinse Soomaaliya waxaa la sheegay in ay faqriga ka baxayso haddii shidaalkaasi uu noqdo shidaal iib gala oo laga gadi karo oo caalamka laga gadi karo inkastoo dhaqaalaha ugu badan ay dowladda Turkiga iyadu helayso oo Soomaaliya wax aad u yar oo percentage ama boqoley aad u yar ay iyadu markaasi heli doonto. Laakiin si kastoo ha noqotoba ay ku faraxsan yihiin ayaa leeyahay Soomaalida inta badan in ay heshiiskaasi galaan oo la soo saaro kheyraadkooda muddada dheer markaasi la isku haystay. tahay ugu dambeyntiina warshadii qaraxyada kooxda shabaab ee deegaanada Jubbaland ayaa la burburiyay. Faahfaahin ayaa waxay ka soo baxayaan howlgal qorsheysan oo ciidanka Jubbaland ay halkaasi ka fuliyeen gaar ahaan Jubbada Hoose kaasoo lagu burburiyay warshad qaraxyo ah. Wararkii oo naga intaas